مدحوينها الصوماليا محمد عبد الله فرماجة وتقاني نكم ملينا أبو مقع مسكين مكأها مقع مسكين مكأها من دي ملب لنا والوجودي وكسيسينا أملا فرماجو فرماجو وكسينا أنا كسينا أصلا أنا كسا أملاها ما شاء الله حد بو waxaan idin sheegaa madaxweyne walba waxbuu ku casheeyaa waxbuu ku quraacdaa waxbuu ku qadeeyaa dhayle jeeni hani allahumma musta'aan waxaan ku dhahaa bira idaad wajigood waa nuura markino ma sha Allah okay farmaajo ayaa waxa faaliyaha qaranka u weydiyay madaxweyne maxaad ku cashaysaa cashadaada maxay tahay maadaama madaxweynihii waddanka aad tahay cawadi maxaad hee farmaajo wuxuu ku jawaabi idinka arki doona ilaa foolka taala daawasho wacan بسم الله الرحمن الرحيم دقدر جو ما حسنت هاي runtii inta badan interviewada ama waraysiga aan bixiyo inta badan waxay u badan yihiin mid siyaasadeed laakiin haddaad tiri arrimaha bulshada kulley ma garanayo waxa soo wado laakiin waa sugeynaa niyo su-aashaada waa kasii adkaanaysa marmar ka dambaysa mas-uul haddaad tahay waan ku celinayaa mas-uul haddaad tahay dadka waxay ku nool yihiin ay cunaan ka wax ka wanaagsan wax xaaraan ma cuni kartid dadka aad mas-uulka ka tahay waa inaa og tahay waxay awoodaan waa sax madaxdu way cuni karaan oo dee positionkii way joogaan inay cunaan soomaali waxaan oran jirnay brimo iyo sugunta iyo teerso dhaylo iyo wax alla wixii maaragtay dee cunto ah oo wanaagsan laakiin anigu markaan joogay meesha waxaan ogaa dadku inay cuni kareen wixii wax cuni kara digirta ama cambuulada wax la yiraahdo marka aad waxaan u cuni jiray cambuulada dadka ila shaqeeyana waa weydiin kartaa ay markino cambuulo lagu casheeyo ya cambuulo ma sha Allah wadani farmaajo ma hal eri waay cawadi ina socono hal eri malo waay wallahi malo waaynin farmaajo ma hal malayuun bidhan loo waay loo dudubo wallahi malo waaynin farmaajo ma dhayla loo waay hal eri yar oo 3 jir oo san ah intaas ka bilaawa cunugiis inta madaxweyneyalka adduunka saas waay cambuulan ku casheeya asiri cambuulo waa wadani farmaajona waa wadani asigoo wax walba heli karo ayuu haddana wuxuu yiri aan jeclaaday inaan ku casheeyo cambuulo maadaama shicibkeyga ay yihiin shicib iska danyar ayaga inay cambuulo cunaan aniga inaan waxaas cuno ilaahay oo unti qofkaan saan maxaan dhihi karnaa unuga su'aal labaad ayaa la weydiiyey madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxaas ahayd su'aasha labaad ee faaliyaha weydiiyey isla faaliyaha weydiiyey mudana madaxweyne kursigan dadka ay ku ordayaan lisku dilooyo lisku xamahooyo qaarkooda jinni ugu dhacay kursi le mudana madaxweyne oo kursigan hadii lagu fadhiisto seela naqdaa ilaahay baari waaya macnaa kursiga ma ku khudqutayha macnaa adama khaatmey macnaa see camal waa usmaa beesa dhalaa dusha gadaal jaakada ma soo buuxsamey see kursigan mudana madaxweyne adaan ku weydiihaynaa adaa aabbaha ummadda Soomaaliyeed ah adaa furihii nolosha ah nooga sheekay kursigan markii lagu fadhiista si la naqahaayo iyo waxaad adigu dareentay mar labaad madaxweynaha oo arintaas ka jawaabaya ilaa foolku taala daawasho wacan qofka sidoo arka way aniga waxaan u arkaa kursigaas raaxo ma laha
وحل واي markaad ku fariisato oo aad mas'uul noqoto dambigeeda waa ku qormaya haddii aadan amaanada ilaalin haddaadan cadaalad samaynin haddaadan naxariis lahayn marka kursigu waa culus yahay inta badan waaba idhaahdaaba qofka hadduu saddexdaas ahayn inuu kursigaas haweysto ma aha aniga marka mabda ahaan shaqada siyaasadda shaqa hadda aan bilaabay ma ahayn markii la magacaabayay 94 yaan siyaasadda Mareykanka ka qayb galay ilaa heer magaalo degmo ilaa gobol oo xitaa dadkii Soomaalida ahaa oo qaxootiga magaalada yimid aan ku caawiyay in xitaa dawladda iyo qaarkood luqadda garanaynin ay dawladdii hoose ama dawladdii dhexe ama dawladdii kale ay shaqo ka helaan aadan kaga mahadcelinaa